Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Taariikhda dunida waxaa soo maray isku dayo shirqoole dil ah oo qaarkood lagu guuleystay, qaar kalena lagu fashilmay oo la seegay halkii la doonayay, kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday madax caan ah oo dunida soo martay. Taariikhda waxaa soo jiray shirqoole loo maleegay siyaasiyiin, madax, ganacsato iyo dad caan ah oo kale oo qaarna lagu guuleystay, qaar kalena lagu guuldareystay. Taariikhyahanadu waxa ay wariyaan qisada shirqool oo ka badbaaday madaxweynihii hore ee dalka Masar, Jamaal Cabdinaasir, oo in badan oo shucuubta Carbeed ay u yaqaaneen geesigii qowmiyadda Carbeed iyo cadowgii adkaa ee Yuhuudda. Taasi waxa ay keentay in marar badan la isku dayay in shirqoole siyaasadeed lagu kharijiyo Jamaal Cabdinaasir oo waqtigii uu xukunka hayay in badan oo shucuubta Carbeed ay jeclaayeen iyo in badan oo kalena ay necbaayeen. Adeeggiisii 6 Oktoobar sanadkii 1954, Jamaal Cabdinaasir ayaa khudbad ka jeedinayay idaacadda dalka Masar oo si toos ah khudbadiisa shacabka u dhageysanayay, isaga oo ku sugnaa barxad weyn ee Al-Manshiya ee magaalada Al-Iskandariya ee dalka Masar. Khudbadaasi oo ku saabsanayd dabaaldegga Masar ugu jirtay bixitaankii ay ciidamada Ingiriiska ka baxeen Masar, halkaasi oo si kadis ah Jamaal Cabdinaasir loogu furay rasaas uu ku riday nin lagu magacaabo Maxamuud Cabdilatiif oo xubin ka ahaa xarakada Islaamiga ah ee Al-Ikhwaan Al-Muslimiin oo Masar ka aasaasantay dunidana ku faaftay. Waxa uu Maxamuud Cabdilatiif madaxweynaha ku riday 7 xabbo oo rasaas ah oo aanu mid kali ah hadafkeedii la haleelin. Goobtii uu khudbadda ka jeedinayay Jamaal Cabdinaasir oo dad badani ku xoonsanaa, waxaa mar kaliya ka dhacay argagax iyo kala yaac iyo xaalad fowdo ah. Laakiin Jamaal Cabdinaasir waxa uu ku qaylinayay cod dheer oo uu shacabka ugu baaqay inay isdejiyaan oo xaalad deganaansho ku soo laabato. Waxaana hadalladiisii uu ku dhawaaqayay ka mid ahaa: qof kasta halkiisa ha joogo, ha dhawaaqina, isdejiya, war ragow isdejiya oo mid kasta halkiisa ha istaago. Noloshayda idinka ayaan idin huray, dhiiggayga ayaan idinku furtay. Waxaan u noolahay dartiin, waxaan u dhiman doonaa dartiin, waxaan u noolaan doonaa ama aan u dhiman doonaa xornimadiina iyo sharaftiina. Haddii ay waajib tahay inuu dhinto Jamaal Cabdinaasir, waxaa idinka rabaa in uu mid kasta oo idinka mid yahay Jamaal noqdo. Waxaan u noolahay in aan dartiin nafta u bixiyo, dalkana aan nafteyda u hibeeyo. Isku daygii dil ee lala doonayay in lagu kharijiyo Jamaal Cabdinaasir sidaas ayuu ku fashilmay oo dhammaan rasaastii lala beegsaday waa lala waayay. Intaa kadib, Jamaal Cabdinaasir waxa uu amray mid ka mid ah ololayaashii ugu caansanaa uguna arxan darnaa ee ugu adkaa ee lagu adkeeyo dadka mucaaradka ku ahaa, gaar ahaan ururkii Ikhwaanka ee isku dayay in uu dilo, oo horeba cadaadis aad u badan ugu hayay. Waxaa la xiray kumanaan qof oo siyaasiyiin mucaarad u badan oo intooda badani ku abtirsadaan Ikhwaanka iyo Shuuciyiinta. Waxaa xilka laga qaaday in ka badan 140 sarkaal oo u janjeeray dhinaca madaxweynihii maqaarsaarka Masar, Jenaraal Maxamed Najiib. 8 qof oo ka mid ah hoggaankii Ikhwaanka waxaa lagu xukumay dil daldalaad ah. Waxaa xilkii madaxtinimo laga qaaday Maxamed Najiib oo waqtiga ahaa madaxweyne maqaarsaar. In badan waxaa loo taxaabay xabsiga, qaar badanna xukun la'aan ayaa la khaarijiyay. Intaa kadib, Jamaal Cabdinaasir waxa uu si aan muran ku jirin u noqday madaxweynaha dalka Masar, isaga oo gacan bir ah ku qabtay. Isku daygii dil ee fashilmay ee lagu doonayay in lagu kharijiyana waxa uu ka mid noqday isku dayada dil ee fashilmay soo maray madaxda caalamka.